15 sano kadib oo xidhnaa madaarka diyaaradaha ee magaalada Burco ayaa saaka dib loo furay duulimaadkii ugu horeeyayna waxa ka fulisay shirkadda diyaaradaha ee Dalsal Airline. Munaasabad loo qabtay dib furka madaarka diyaaradaha ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay hay'adda duulista iyo madaarada Somaliland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Burco. ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay maareeyaha hay'adda duulista iyo madaarada ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale iyagoona ka warbixiyay ahmiyadda ay yeelan doonto dib furka madaarka magaalada Burco. ما شاء الله ما أنت إلهي ومهدنا هدي ما أنت إلهي نوفر مداركي آدي آدنا وحنو سودوينا طيارة دلسل إيرلاين أو افتتاح نوع وناكسن ما أنت برعنا وحنو جبورينينا إن الطيارة عمران وأكوي برعو تاجنا إن طيارة لو كانوا ما أنت وديارة وتتاجن وحي ما أنت كبل عمه رأي برعو حلو جبهة هي إن وديار جرومان طيارة دا سيدو عمر الهاين آدي آدنا هركم وحنو جم هاد علنية ما رأي هاي دولست هوده وحوش نوس ورتجليه ما أنت aynu ku faanayno yamaarey ku xigeenka hay'ad duulista hawada aad iyo aad bay farxad noogu tahay hay'ad duulisaan maanta ka soo degnay garoonkii Burco iyadoo reer Burco u baahnaayeen airport diyaarad loo kala oo dhankay doonto u qaada alaabahay doontana magaalooyinka doonana u geyso una soo qaada fiishka waxa weeyaan insha Allah inaan sameeyno daily flight oo ilaa 4 cisho imika ku bilaawno weekii haddii ka banaanto insha Allah waan ku doon insha Allah taala wixii ka dameysana wixii charter wixii cargo insha Allah wuxuu dhan u furna insha Allah taala wuxuu nagu qaatay 33 minutes ilaa 30 minutes nagu qaatay been airport Burco markii noogu horeysaan ka soo degno waa airport wanaagsan intaan hadda aan sheegi karno waxa weeyaan wax sidaas oo aan problem aan ku qabnaan ma jirin haddii noqoto dhinaca navigationka iyo dhinaca degitaanka baan ugu mahad celinaynaa hay'adda madaarada qaranka iyo shirkadda Dalsan ee duulimaadyada waxaan Ilaahay ka baryeeynaa inuu Dalsan ugu wado oo duulimaad dalkoo dhan wada gaadhay sidii sheegayaan iyo Dalsanna uga dhigo ganacsigooda mar labaad baan idin mahad celinaynaa oo saaka shirkaddii ugu horeysay aynu ku iba furayna ay noqotay iyadana uma ilaawi doono waan u mahadnaqaynaa insha Allah taala reer Burco reer Togdheer maanta farxad gaar ah inoo tahay muhiimadeena waxa weeyaan maanta laga bilaabo airportku inaga leena ka rabaa sidii aynu maxay hayteenay rikaab leeno ka heli lahaa oo aynu u raaci lahayn ilaahay maadi waxa nasiib u yeelatay Dalsan Airline inay soo fadhiisato arinta mahadeeda ilaahay baa leh subxaanahu wa ta'ala marka koowaad marka labaadna wasaaradda duulista hawada hay'adda duulista hawada ayaa leh marka saddexaadna jaanaguna waa u sabirado in badan baan u sabrayno suganadaanu ducaysana waxaan aad ugu faraxsanahay wallahi xalay ma seexano xalay oo dhan waan soo jeeday farxad gaar ah bay aniga ii leedahay maanta airport-kan la furaya aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa shirkadda Dalsan oo duulimaadyadoodu wiigiiba dhowr cisho ay siday dadku ugu baahdaan ugu duuli doono maxaan ku dhahay gobolada haddaanay waxba qabsan dawladda ma hirgeli karto waxba dawladdu wax ma qaban karto kaliyeed aad u maasantihiin waan ku faraxsanahay in maanta Burco ay heshay diyaarad loo kala oo isaga gooshta gobolada waddanka oo dhan Cabdiraxmaan Camar Television-ka Universal